waa inan wanaagsan, hooyadeedna aad u jecel oo garanaysa inuu Ilaahay amray in hooyada la adeeco. Waxay ku fikiraysaa maanta Canab inay hooyadeed ka farxiso. Maxay samayn doontaa? Ka warrama haddaynu u diyaarino maanta hooyo wax ay ku faraxdo. Waa fikrad wanaagsan. Waan samaynaynaa. Waxaynu samaynaa haya fikrad. Aynu fikirno. Waan helay. Noo sheeg. Ubax qurux badan oo aad u udgoon ayaynu diyaarinaynaa. Si fiican keena. Ubaxani waa udgoon. Waana qurux ubaxu. Hooyaday way ku farxaysaa. Aan idin keeno weelkii ubaxa. Waatan. Ka warrama haddaynu qurxino weelka ubaxa. Waxaan hayaa xabag ubax. Ana waxaan hayaa kalimaan. Anigana waxaa hayaa dhaldhalaal. Aynu bilowno. Masha Allah. Waynu dhammaynay. Waynu xinay. Markaynu ubaxa ku ridno, waa sii qurux badanaysaa. Carruurtaydii wanaagsaneed, dhammaantiin waan idin jecelahay. Mahadsanidin. Hooyo macaan. hooyadu meel weyn ayay kaga jirtaa diinta Islaamka. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina amray inaynu adeecno oo aynu ula dhaqanno si naxariis leh. Naxariistaasina waa mid u keenaysa farxad iyo raynrayn.